السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدنيا ميل والبعد كي جوكت شنت قارة ضد كوسكون تاي حالة ضربة يكوت هاي هدي مالك كوتا مالي ونكس ندي هبين كوتا هبين ونكس ندي قلب كوتا قلب ونكس ندي دور كوتا دور ونكس برقة كوتا برقة ونكس ندي عصر كوتا عصر ونكس ضد كوسكون شنت ما مقبل الناس يدخل ساعد مقال كنا دو كوسو قارات كلهم ناس يطو عافيمات ضد حمصة إلهي وحنا كبر عافيمات تام ضد عافيمات خطنا إلهي وحنا كبرنا عافيمات عمر داري عافيمات ديري سود بعد الله هاي بسم الله الرحمن الرحيم رنشق وعيب شيك بسم الله الرحمن الرحيم مقالكل قروح بدن هكا تقدامني سوا سمدون جروب دتك عزتا سحب بيج كدا جوك تفلو إيده لكن سيدو كلا شارتن هاي الإمامين سي شرقر أصحابتا لسي ودا يوتيوب كدا جوك تنا صاحب وحكا عصلا وانا أودا حاسنما يسكو أهانيني سبسكرايب إسار لكن سيدو كلا شارتن سيدو كلا قمبران كنا فرو مقالكل قروح بدن إنا لله وإنا إليه راجعون والديت Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad baan ugu xumahay maadaama gabadhaasi saqiirta asabiga waxba aanay galabsanin oo lixsan jirka ah ilaahay qadartiisa ku dhacday laakiinse dayacaadda ugu weyn waxay ka socotaa waalidiinta sababtoo ah qof waalan iyo caruurta sababta la iskugu tagay horta maxay tahay sababtoo ah qofku waalan iyo caruurta waa la kala dhaqaajiyaa sababtoo qofku waalan mar walba arrimo fara badan oo sameyn karaa sida hadda arrinta uu sameeyo oo kale xataa kufsi oo sameyn karaa xataa dhaqan kale xumo oo kale oo sameyn karaa laakiinse hooyadii iyo aabihii gabadhaasi dhaleen oo daarusalaam maanta saas lagu yeelay ilaahay idinku dhaarshay dayacaadda midda ugu weyn waalidka gaar ahaan hooyada ayay ka yimaadeen hooyo waxaa lagaa rabaa gabadhaada ama caruurtaada iyo dadka walwaalay inaad kala leexisid aad kala qarisid diris lalama noqdo qof waalan wax walbaa ka suurtoobo laakiinse alxamdulilah qadarta ayaa gabadhaasi qabsatay waa idinla qaybsanayna murugada aad dareemaysaan laakiinse fadlan bifadlikum soomaali maxamed meel walba aad joogtiin waxaa idinka codsanaa ubadkiina qalad inaad ka gashaan maaha sababtoo ah waa ubadku waa uwaxa keliya guriga ifinaya haddii ubaxii guriga ifinaya aad dayacdaan alla ilaahay meesha maxaa yaal sababtoo maanta waa kana gabadhan waa dayacdeen qadartii ka sokow arrintaana ku dhacday berina maalin walba waxaa ku jiraynaa dadaa la gooracay hooya aa la gooracay uwadaa la gooracay gooracitaanka beryahan waa soo batay war dadkan walwaala meel lagu xero maalalaaya titoor xabeeb maa loo geeyay asxaan markaas wax walba fudana laakiinse haddii idinkiiba caruurtii iyo waalidiintii dhamatirkooda isdayacayaan الله إله وحي وشي سعنايا maalinta kasii dambaysan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun afka ku badinayna alaa u naxariisto waa kasii soconayna laakiin arinta waa in laga sameeyo fal celin aad weyn sababtoo dadka walwaalan waa in la xakameeyo la xirxira la geeya meelaha qaar laakiin sabti salaam socoti ma aha mid qurux badan oo arintan insaan ay ku dagayso sababtoo ah waxa loo baahan yahay badbaado aad weyn haddii la kala badbaadinayn xataa allah shaan hana laga yareeyo xataa dhimashadana oo gooricitaanka badbada dirad waxaan arkayni hooyaha wiilkeeda gooracay maantana nin waanla gabadha lix jirka gooracay maxaa keenay maxaa sababay ina dhibkaan magaalada uu kusoo bato soomaaliya sababtee uu soo badanayso arrintan oo falkan wax laga qabo laayahay meel walbana waa wada joognaay walaalayaal saan ha la iska bedelo saan waxa laga bedelo haddii kale maalinta kasii dambaysa gooritaanka oo sii badan dadka waa la dhiirigelinay kasii qaadayno dadka inay dilaaneen mar walba ay rabaanay saaxiibayaal waxaa idinka codsanaya dadka waalan meel amni hala geeyo caruurta iyo dadka waayeelada iyo dadka maatada ah yaa lagu soo dhexdeynin hana laga qabto meelaha laga qabto saaxiibayaal muuqaalka kiis xitaa ku kulmi doono waa bahalisa madoon group oo idin dhahayo beedka dadka inta follow laagtana sidoo kale sharetana sidoo kale هذا يوتيوب جبتنا سبسكرايب إيسار لايكتنا سيدو كلا شارتنا ويمين قبل ترفروا ويمينو واد أود واحد أود ذا كور سنة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا تذكروا والوالا الله نغخوا نمت قليو